coronavirus walaalkiisii ka weynaa hantavirus oo soo ragaal celiyay caalamkana ku soo noqday. hantavirus cudur cusub miyaa mise waa cudur hore u jiri jiray? fayraskan 24 saacadood caalamka baraha bulshada isla dhex qaadayay. السلام عليكم وchannel keeni Karama channel waanigo maxamed fadlan channelka rukumo oo subscribe saaro si aad ula socotid maalin kasta videos faa'iido leh. Programkeena maanta waa hantavirus cudurka baraha bulshada ama social media caalamka oo dhan haystay 24 saacadood ee ugu dambeeyay ayaynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa calaamadihiisa xanuunkan hantavirus mise ka khatarsan yahay xanuunkan imika jira ee coronavirus. waxa kale oo programkeena ku soo qaadan doonaa cudurkan cudur cusub oo imika dilaacay miyaa mise hore ayaa u jiri jiray. waxaynu ku soo qaadan doonaa oo kale calaamadaha lagu garto cudurkan hantavirus, calaamadihiisa hore iyo waqtiga uu cudurkan ku soo ifbaxo. waa maxay hantaviruses? hantaviruses waa family viruses oo laga qaado jiirarka noocyadiisa kala duwan, waxaana uu sababaa cudurro kala duwan oo qofka bini'aadamka ku sababi karo. xanuunada uu ku sababi karo qofka bini'aadamka waxaanu ku ogaan doonaa fiidiyogan dhexdiisa. hantavirus waxaa magacan hanta lagu bixiyay region ku yaala America. fayraskan hantavirus waxa uu adduunka ku baraarugay markii ay qof uu ku dhintay dalka China fayraskan hantavirus daraadeed, iyadoo caalamku la dhibanaa ama la daala dhacayay fayraska coronavirus oo dhibaato badan ku hayay. cudurkan ama fayraskan laga qaadayo jiirka asbaabo kala duwan ayaa lagu qaadi karaa, taas oo ah in la cuno ama in laga qaado saxaradiisa oo aad taabatid isagoo qaba, ama in kaadidiisa jiirka isagoo qaba aad taabatid. laakiin inta badan reasonka ugu weyn waxaa loo sababeeyaa in dad badan oo jiirkan cunaa ay laga qaaday xanuunkan hantavirus, kuwaas oo cuni jiray jiirarka iyada oo loo sababeynayay cudurkii coronavirus in laga qaado cunista la cuno fiidmeerta. waxaana la yidhaa waxaa soo transmit gareeyay ama usoo gudbiya bini'aadamka dadka Chinese-ka ee cuna ashyaada kala duwan sida jiirkan imika laga qaadayo hantavirus. waxa kale oo cudurkan la iska weydiiyaa ama fayraskan hore miyuu u jiri jiray mise waa mid cusub oo sanadkan soo ifbaxay? may cudurkan waa cudur hore u jiri jiray ilaa 1950kii, waxaana jira old world hantavirus iyo new world hantavirus oo loo kala jeedo caalamkii hore ee hantavirus iyo caalamka cusub ee hantavirus. cudurkan waxaa la helay sanadkii 1950kii isagoo xitaa ku dhacay ciidan Amerikaan ah oo joogay Korea. calaamadaha cudurkan hantavirus maxaa ay yihiin? symptomska ama calaamadaha lagu garto waxaa kamid ah qufac fara badan oo qofka dareemo, iyo pulmonary-ga laabta oo xanuunta, calool xanuun fara badan oo uu qofku isku dareemo. waxaa kale oo lagu gartaa qofku in uu hunqaaco ama matag badan uu sameeyo ama uu hunqaaco. hunqaacadu ama matagu waxa uu ka mid yahay calaamadaha lagu garto hantavirus, iyo lalaabo badan oo aad dareentid. waxa kale oo lagu gartaa caajis fara badan oo uu qofku dareemo, iyo madax xanuun saa'id ah oo uu qofku dareemo. calaamadaha kalena waxaa lagu gartaa in ay garbaha ay xanuunaan oo garbaha uu ka dareemo xanuun zaa'id ah. waxa kale oo lagu gartaa inay qofka xanuunaan bawdiyaha, lugaha, iyo waliba inuu qofku madax xanuun fara badan iyo wareer badan uu dareemo. hantavirus waxa uu kugu ridayaa oo kamid ah calaamadihiisa caajis fara badan oo aanad hore iskugu arki jirin. calaamadaha aad horey markaba aad iskugu arkaysidna waxaa kamid ah maskaliska ama murquhu in ay ku xanuunaan, gaar ahaan murqaha garbaha iyo murqaha kale ee xagga dambe ee baaga. hantavirus waxa uu kaga duwan yahay coronavirus waxa ay tahay
cudurkan laga qaado jiirku waxa uu kaga duwan yahay corona, ma badna spreadkiisa ama faafitaanka sida coronavirus oo kale si zaa'id ah uma faafo. Waxa kale oo uu kaga duwan yahay dadka uu ku dhaco inta badan kuma sababo dhimasho sida coronavirus oo kaleeto. Cudurkana ma aha mid imika laga warwaro. Social media-hana waxaa ku soo jeediyay kadib markii maalin dhaweyd laga helay dalka China qof qaba cudurkan hantavirus. Fayrasyadan kala duwan, cuduradan kala duwan waxa ay faafeen kadib markii bini'aadamku cuneen wixii Ilaahay ka xaaraantinimeeyay ee xaaraanta ahaa. Chinese-kuna ay isku dayeen wax kasta oo dhaqaaqaba in ay cunaan xitaa jiirkii, kadibna ay ka dhaxleen fayrasyo aanay aqoon dadkii ka horreeyay sida coronavirus iyo hantaviruskan oo ka horreeyay coronahan imika jira. waxa kaliya ta ay ku xakameynayaan ay noqdaan ku badbaadaya noloshiina ilaad guryihiina ku jirtaan, waayo wax daawo ah uma hayaan. Ilaahayna Soomaalida ha ka badbaadiyo fayrasyadan kala duwan, guud ahaana muslimiinta Ilaahay ha ka badbaadiyo cuduradan dhibaatooyinka badan leh.